safiirka Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta Ambassador Xasan Yaasin Hirad oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray dardargelinta howlaha shaqo ee safaaradda Somaliland iyo sii xoojinta cilaaqaadka safaaraddu la leedahay ganacsatada iyo madaxda dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madax sarsare oo ka tirsan shirkadda DP World. Ambassador Xasan Yaasin Hirad ayaa kulan la qaatay Suhayl oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadaasi waxaana ka wada hadleen dardargelinta mashruuca dhisidda dekedda magaalada Berbera iyo waliba mashruuca Berbera Corridor isagoo safiirka iyo shirkadda DP World mas'uuliyiintooda ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay qabsoomidda munaasabadda dhagax dhigga oo dhawaan la filayo in la dhagax dhigo ballaarinta dekedda magaalada Berbera. Mas'uuliyiinta DP World ayaa sheegay safiirka Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta Ambassador Xasan Yaasin Hirad inay fulin doonaan ballamadii kala duwanaa ee ay la galeen dawladda Somaliland waxaanay sheegeen in mashaariicda horumarineed kala duwaneed ay dardargelin doonaan bilowgooda sida ugu dhaqsiyaha badan dhawaan isla markaasina dhawaan la dhagax dhigi doono dhismaha dekedda magaalada Berbera ee ay ku soo kordhinayso shirkadda DP World. sidoo kale safiirka Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaa casuumaad rasmi ah u sameeyay Maxamed bin Cayf oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee dalka Imaaraadka Carabta isagoo mas'uulku qasrigiisa Al Ain ugu sameeyay munaasabad ballaaran oo harimo sharafeed ahayd. casuumaadda kadib ayaa safiirka iyo ganacsatadu waxay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa maalgashiga Somaliland ee ganacsatada dalka Sultanka Imaaraadka ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaayeen isla markaasina ay doonayeen inay maalgashadaan Somaliland. ganacsadahan ayaa ka mid ah dadka maalgashiga dhanka beeraha ka sameeyay Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay. sidoo kale safiirka ayaa waxa uu kulamo kula qaatay xafiiskiisa isla markaasina ugu yimid ganacsato ka socota dalalka China, Bahrain iyo waliba dalal kale Australia isagoo dalka u soo diray ganacsato ka shaqeyn doona dhanka macdanta isla markaasina raba inay maalgashadaan dhanka wax soo saarka macdanta Somaliland kuwaasi oo ay isku xidhay iyaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Somaliland. sidoo kale ganacsato Chinese oo iyaguna doonayay inay Somaliland maalgashadaan iyo waliba kuwa ka soo jeeda dalka Bahrain oo doonayay maalgashi dhanka kalluumaysiga ayaa safiirku ku soo xidhay isla markaasina uu xidhiidhiyay iyaga iyo wasaaradaha dalka Somaliland ee ay wada shaqaynta ka rabaan in ay yeeshaan. sidoo kale ganacsato ka soo jeeda dalka Hindiya ayaa iyaguna safaaradda Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta u yimid inay la shaqeeyaan heshiisyo kala duwan oo maalgashineed oo ay rabaan maalgashadaan kuwaasi oo safaaraddu isku xidhay iyaga iyo wasaaradda horumarinta maalgashi dardargelinta howlaha shaqo ee safaaradda Somaliland ee muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa Ambassador Xasan Yaasin Hirad sida lagu sheegay qoraalo kala duwan oo ay baahisay safaaradda Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. safiirku waxa muddooyinkii ugu dambeeyay dardargelinayay xiriirka ganacsi maalgashineed siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaale ee wadamada caalamka ay la leeyihiin Somaliland gaar ahaan wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta. jaaliyadda Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa safiirka u sameeyay munaasabad ay ku soo dhaweynayaan. si kastaba ahaatee dardargelinta howlaha shaqo ee safaaradda Imaaraadka Carabta ayaa ku soo beegmaysa waqti Somaliland ay saameyn ku yeelatay dalka Imaaraadka Carabta dalkaasi oo maalgashiyo kala duwan ku sameeyay Somaliland. safiirku waxa uu kulamo la qaatay maalmihii la soo dhaafay ganacsato tiro badan kuwaas oo dhammaantoodba u sheegay inay rabaan inay maalgashadaan Somaliland. safiirka ayaa xidhiidhiyay ganacsatadaas iyo wasaaradaha ay rabaan inay wada shaqaynta la yeeshaan isla markaasina waxa uu siiyay fiisayaasha dalka galka Somaliland. Luqmaan Maxamed Farax Bulshati.